gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho, wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ayaa aqalka dowladda hoose xamar ku yeeshay shir ay kaga hadlayeen saameynta uu roobku u geystay magaalada Muqdisho iyo inta uu la egyahay khasaaraha uu geystay. Shirka oo saacado badan socday ayaa markii uu soo ilaaday waxa ugu horreyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriso isagoo ka warbixiyay gurmadka uu maamul gobolka Banaadir ka wado degmooyinka gobolka Banaadir. maanta oo dhan maamul gobolka Banaadir wuxuu ku hoolanaa qiimeynta khasaarahaas intuu la egyahay iyo sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadkii waxyeeladu soo gaartay. dhimashada ilaa hadda inta ahayno waa 6 qofood. dadka guryahooda biyuhu galay oon caawa ku hoyan karinna ilaa 301 guri lagu qiyaasay. waxaa kaloo socda degmooyinka qaarkood waa kala daran yihiin, degmooyin biyuhuna saameyn gaarsiiyey, dadkii degaankana guryahoodii aysan joogi karin. maamulka gobolka Banaadir waxa uu bilaabay in dadkaas la dejiyo goobaha dawladda, siiba goobaha dawladda hoose ama laamihii ama waaxyihii ama degmooyinkii, si gurmad degdeg ah loogu fidiyo. intii laga gaari karin waxa loo gaarsiiyey bac ama wax ay uga degtaan ama roobka. Duqa magaalada Muqdisho Injineeriso ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay si degdeg ah u gargaaraan dadka danta yar ee uu roobku saameeyay. waxaa marka bulshada ugu baaqaynaa in la isgaargaaro, gurmadkaas isaga laga wada qayb qaato. ciidamada qalabka siday u dhan yihiin waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan. arrimaha mudnaanta aan siinay annaga maamulka waxay tahay 1 goobaha biyaha fariisteen in biyihii laga guro oo biyo guristii haddaba socoto, in dadka iyaga waxyeelada soo gaartay raashin sidii ku heli lahaayeen afur iyo loo diyaariyo oo degmooyinka qaarkood aad tegi kartaan, soo booqan kartaan. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Bashir Goobe oo ku hadlayay codka taliyayaasha ciidamada qalabka sida ayaa tilmaamay in ciidamada ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada gurmadka dadka uu roobku saameeyay. waxay ciidamada qalabka sida diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan gurmadka ummadana badbaadadeeda ay qaybta ugu weyn ka qaataan. sida hadda u sheegteenna saacadan laga bilaabo ilaa iyo wixii hadda ka dambeeya ciidamadu waxay ka qayb qaadan doonaan inay dadka biyaha dhex yaala iyo iyadoo waliba saadaashu tahay inay roobabku ay di'i doonaan ilaa ay caawa sida saadaashu tahay in aanu marka ciidamadu ku talagelayaan heegan bay galayaan. caawan haddii alla idma saxaafaddu waxay ku arki doontaa wadooyinka ciidamadii qaranka oo meel kasta maraya oo dhulkii xaaqaya oo bixintii ka qayb galaya oo amniga sugaya. wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ka hadlay dadaalka ay xukuumadda ku bixinayso sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka danta yar ee uu roobku saameeyay. anaga xukuumad ahaan waxaan diyaar u nahay ciidamada inay u diyaar garoobaan siday u kaalmeyn lahaayeen gobolka Banaadir. gudoomiyaha ciidamada ku diyaar hadduu Ilaahay yiraahdo afurna waxaan qaban doonaa wixii nooga gudboon oo magaalada jiiska hadii la nadiifin lahaa iyo biyaha magaalada hadii laga dhumin lahaa meelaha ay fadhiistaan intaas xoog saarna hadduu Ilaahay yiraahdo. Nuur Saciid Taaliil, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.